maalin dhaweyto haweeney baa soo wacday in badan bay telefoonka igu soo celcelisay anna mashquul baan ahaa xafiiskaygaan joogay qiso markii dambaan la hadlay dabcan qofka iyo magaciisii iyo ma sheegayno annagoo ilaalinayna maaragtay wax badan laakiin qisadu waa qiso xanuun badan waxaan idinku sheegayna waxa weeye waxaan u baahannahay inaan ka taxadarno haweeneydaas waan wada hadalnay telefoonkii bay ula hadashay waxay tiri iyadoo ooyeysa oo xitaa aan hadli karin oo hadalkeeda aan fahmi la'ahay oohinta ay ooyeysa darteed yaa waxay ii sheegtay arrin aan aada uga naxay runtii oo shoog igu riday waxay igu tidhi maanta wiil aan dhalay oo 13 jir ah yaa wuxuu ii sheegay inay niman ciyaalo suuqiin ah oo superpower iyo wax la mid ah ay isticmaalayeen muddo 7 sano 7 years ma noolaba wiilku dugsiga markuu ka soo baxo jidkay u istaagaan bal dugsigay ugu tagaan iskuulkay ugu tagaan 7 sano bay isticmaalayeen rag waaweyn dhowr iyo 20 jir ah ma noola haweeneydii wax alla waxay samayso ma laha way iska ooyeysaa maxaan sameeyaa bay leedahay ila taliya waxay la qabta wiilku intuu kaxeeyey ayuu wuxuu tusay qaar ka mid ah raggii faaxishada ku sameynayay korka ka tusay waa islii meel kale ma الله مستعان gabadhii haweeneydii ama hooyadii waxay tiri aabihiis hadduu waxaa maqlo suurtagal waxaa horta nimankii inuu dilo oo gacan ula tago oo kow ka siiyo diliba dhiig inuu daadiyo shakiga ma jiro inuu dili taa hadday dhacdana waa ka sii daran tahay sheekadu bal xataa wiilka